kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle abaanduulaha ciidanka qaranka Soomaaliland Saleebaan Barre Geesood hoggaanka hawlaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiqani Ciise Meygaag Ganay xogayaha dawladda hoose Axmed Yunis Aadan Juxa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faysal Xiis Cilmi maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Cagaweyne ayaa ujeedadiisu ahayd go'aamo laga soo saaray dhinaca dhaqdhaqaaqa gaadiidka ugu horreeyna afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faysal Xiis Cilmi ayaa ku dhawaaqay go'aamadaasi iyo waqtiyada ay bilaabmayaan saad la socotaan waxa caawa ah munaasabadii sidoo May hadii la yiraahdo sida awgeed jidka dheer ee halbowlaha ah ee Hargeysa ku yaala ee loo yaqaan road number 1 waxaan gaadiidada u sheegaynaa inaan la mari karin laga bilaabo 7 caawa waxaan kale u sheegaynaa dadweynaha gaadiidada ah inay marayaan cusbitaalka dabadiisa oo ay labada dhinac u mari karaan ilaa iyo inta munaasabadu ay ka dhamaanayso waxaan soo hormari doonaa hadii la yiraahdo halka kaadkaad ka soo leexanayaan wadada si ay dhigi soo hormariyaan taa ku bishiga ku dhacayaan waxa kale oo dadweynaha Soomaaliland guud ahaan loo sheegayaa in dhaqdhaqaaqa gaadiidku uu xadidan yahay laga bilaabo 10 caawa hadii la yiraahdo marka laga bilaabo gaadiidka marka laga reebo gaadiidka ammaanka ilaalinaya ee ciidamada qalabka sida ee kala duwan ay wataan oo la hubinayo iyo gaadiid kooban oo hawlaha dabaaldega ka shaqeynaya oo ciidamada ammaanka ay ka warhayaan oo ay xaqiijinayaan xadidaadooda gaadiidka waxay ku eg tahay ilaa munaasabadu inta ay ka dhamaanayso 18 May waxa ka reeban gaadiidka dhaqdhaqaaqooda kuwa cusbitaalada ee gurmadka dadweynaha ka shaqeynaya maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Cagaweyne ayaa dadweynaha magaalada Hargeysa ugu baaqay ilaalinta amniga iyo ka qayb qaadashada munaasabadda 18 May wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ku tilmaamay in munaasabadda 18 May tahay mid lagu muujinayo shucuurta qarannimada Soomaaliland waxaanu ugu baaqay dhinaca amniga iyo ilaalinta nabadgelyada sidii loo fulin lahaa ilaa inta lagu guda jiro munaasabadda 18 May dhammaanba dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinaynaa in la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada iyagu noqdaan gacmahoogii dhagahoogii indhahoogii oo ay door to door yani aqal walba aqalka kale waxa ku jira ogaado in aynu isu tabino war wixii dareenahay la arko si degdeg ah la isku tabiyo nabad baynu ku ciidaynaa runtii waxaan ka xumahay shaqaqada ka dhacday bari ama ceelaf weyn iyo agagaarkeyga gobolka Sanaag waxa ku maqan wafdi balaaran oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha insha Allah khayr bay ku dhamaan doontaa kullay dadweynaha reer Soomaaliland wax garadkoodu waa tagi doonaan hadii la yiraahdo wixii ka dhacayna sidii loo geli doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantiin halala shaqeeyo ciidamada nabadgelyada meel kasta ay joogaan taasaan isku buurinayaa وحسن إسماعيل محمد تلفزيون قناة Somaliland مقالة هرقيسة.